Assalamu alaikum. Yeah, 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 yeah. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh walaalayaal soo dhawaada meel walba joogtaan. Maanta waxaan idin hayaa program ama topic oo ka hadlaya sidee baad maaragtay naftaada aada u caawin lahayd, sidee naftaada horumar ugu sameyn lahayd oo aada wax walbaad rabtid inaad gaadhid future-ka, yacni aada maaragtay balaankeed u sameyn lahayd. Marka walaalayaal, waxa ugu horeeya ee aada rabtid naftaada inaad kor ugu qaadid ama aada caawisid sidii ay u gaari lahayd wixii aad doonaysay, waxa weeye inaad yacni aada balaan samaysatid. yacni balaan samayso, maaragtay ku xiji action samee. Markaad action samaysid aad og tahay okay this is kan waa wixii aan rabay inaan sameeyo, dan balaankaaga isna ka dhigo oo ku maaragtay haka boodboodin oo haka intaad wixii maaragtay hadda bilowdid hadhihin okay aniga waxaan ima shaqeynayaan. Marka waxaa rabaa inaad balaankaaga aad samaysatid, markaasna aad hirgelisid wixii aad doonaysay ee nafsadaadu rabtay. Ta kale waxa weeye walaalayaal, waxa la yiraahdo maaragtay inaad vision yeelato. Qofku aragti waa inuu yeeshaa, waa inuu yacni fiiro yeeshaa meeshu u socdo qofku. Haddaadan fiiro leeyahayn, fiiro dheer weliba haddaadan lahayn, waxa weeye waxba kuma kala soconayo. Marka waa inaad fiiro dheer yeelatid si aad u ogaatid meesha aad u socotid. Maanta halkan taaganahay, berina halkaasaan u socdaa. Marka inaad vision qofku inuu yeesho aad bay muhiim u tahay oo wax walbaba aad visualize ku samaysid oo aad fiirisid, yacni waxaan maaragtay nafteedani wax fiican miyay wadaa, adoonan marnaba hoos isku dhigaynin oo is aaminsan. Tan kale waxay tahay walaalayaal, inaad fiirisid dadka kale ee maaragtay meeshii, yacni dadka kale inaad fiirisid weeye. Dadkaas oo ah yacni dadka aad rabtid inaad gaadhid meeshay joogaan. Yacni dadkaas adiga meeshii aad rabtay inaad gaadhid bay dadkaasi joogaan hadda. Marka maxaad sameynaysaa? Waxaad sameynaysaa yacni inaad dadkaas aad raadsid weeye, storygooda aad maaragtay akhrisid, lifekooda aad dib yacni u eegtid, aad u baadhid, aad tirahdid qofkani shalay muxuu ahaa, maantana muxuu yahay. waayo qof maaragtay qofkaasna waa qof yacni maadaama uu yahay qof in mudan in lagu daydo. Marka qofkaasi adigii waxaad ka qaadaysaa firfircooni inaad ku dayatid, waayo qofkaasi waa qof aada u dadaalay oo shalayto maaragtay meel intuu kasoo tegay maantana meeshii uu rabay u gaadhay. Marka adigana aad bay ku caawinaysaa taasi. Tan kale ee lagaa raba inaad gaadhid waxa weeye, si aad naftaada u aamintid ama aad naftaada kor ugu soo qaadid, waxa weeye inaad yacni aad adiga ishubisid. waa inaad mar walbaba hubi. Markaan leeyahay hubi, maxaad ka wadaa? Naftaada hubi. waayo waxaa laga yaabaa markaad rabtid arrimaha inaad gaadhid in ay dhacayso marmarka qaarkood inaad yacni aad noqotid qof meeshii waxba u kala socon waayo. waxba qof ay u kala socon waayaan ayaad noqonaysaa. Marka lama baahna inaad noqotid maaragtay qof meel iskaga dhigay. waa inaad tiraahdaa it's okay, tan way dhacday, khalad kugu dhacay, yacni aniga dadku igama fiicna, I believe waxaan rumaysanahay inaan aniguna naftayda aan samayn karo waxay dadkani gaadheen. Marka ku dadaal inaad maaragtay aad mar walba ishubisid oo dib isugu noqo naftaada oo dhahdo okay maxaa naga dhacay, khaladkan ma iga dhacay, berita maxaan khaladka ku sixi karaa. waa inaad wax khaladkaaga waxaad ku saxdid aad keentid si aad hore ugu talaabadaada hore ugu qaadid ood hore u socotid. Tan kale walaalayaal waxay tahay inaad naftaada ka ilaalisid marnaba inaad dadka kale iskala mid dhigtid. yacni hebel baa sidan ah, anigu sidan ma ihi. heblaaya sidan weeye, anigu sidan ma ihi, aniguan ka liitaa, anigu maaragtay waxba ma qabsan karo. iyagu horumar bay gaadheen, anigu waa aan wax horumar u gaadhi waaye. marka taas waxa weeye waa arrin aad iyo aad u daran weeye, naftaada hoos u dhigaysa
oo wixii aad aaminsaneyd oo dhan kaa kala burburinaysa. Marka looma baahna. Ku dadaal inaad naftaada mar walba kor u qaadid oo aadan dadka kale aadan dhihin iskala mid dhigin. yacni adigu qofkaas ma tihid, adigu you are who you are. adiga heblaaya lagu dhahaa, waad ogtahay. hebel waa hebel, heblaayo waa heblaayo. qof walbana ilaahay maaragtay si gaar u sameeyey. adigu gaar baad si ilaahay si gaar kuu sameeyey, qofka kale ilaahay si gaar u sameeyey. isku mid marnaba ma noqonaysid, laakiin wuxun baa lagu kala duwan yahay. taas micnaheedu ma aha inaad hoos isku dhigaysid aad leedahay qofkan baa iga fiican. waxaan ka wadaa waxa weeye, markaan leeyahay qof walba ilaahay gaar buu sameeyey, adiga waxaa laga yaabaa waxyaalo badan oo wanaagsan aad ku fiican tahay baa jira. qofkaasina waxyaalo badan uu ku fiican yahay baa jira. marka tiisa ha eegin, adigu taada eeg, adigu maxaad ku fiican tahay. markaad ogaatid waxa aad ku fiican tahay iyo waxaad maaragtay meesha aad maaragtay aad isleedahay waxbaad bedeli kartaa, markaas horey u soco, gadaal ha eegin. hadday wax kaa khaldamaan ha eegin gadaal, horey u soco. marka waxay kaa caawinaysaa inaad maaragtay keentid isbedel weyn keentid oo naftaada kubcisid oo naftaada kor u qaadid. waxyaalaha maaragtay maskaxda dadku ay iskula hadlaan ee negatifeka ah, aad iyo aad bay qofka ay u kharibeen. qofka maaragtay aad bay naftiisa hoos ugu dhigtaa. taa iska ilaali, marnaba ha aaminin naftaada yarta inta kula sheekaysatid inaad tirahdid waxba adigu ma tihid, waxba ma qabsan kartid, horumar ma gaari kartid, maxaa tahay, dadkan dhan baa kaa wanaagsan. marka taasna iska ilaali insha allah. haddaad taa iska ilaalisid, horumar baad gaaraysaa, horumar weyn baad gaaraysaa. markaa naftaada jeclow, naftaada kobci, naftaada kor usoo qaad. marka taas waytayn u baahanahay maanta insha allah. haddii aad ka heshaan tobigyadan oo kale haddaad jeceshihiin inaan ka hadlo, insha allah ila soo socodsiiyaa. waadna ku mahadsantihiin dhegeysiga aad dhegeysanaysaan. soona dhawaada. qofkii cusub waxaan leeyahay kusoo dhawaada channelkeena, subscribe iyo like iyo thumbs up noo samee, adigoo maaragtay aada u mahadsan. haddaadna horey noola joogtayna thumbs up iyo comment below insha allah biidni illah. haddaad cusubtay xataa comment below waad sameyn kartaa. soo dhawaada dhammaantiin baa idin leeyahay mar kale. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.